ku salaamay daawade ku soo dhaw muuqaalkan maanta oo kaga hadli doono xaaladda ka taagan wadanka Ukraine waxa ka socda dagaal ku soo qaaday Ruushku kaasi oo uu qorsheeyay dhamaadkii sanadkii hore 2021 muddooyinkii ugu dambeeyay wadanka Mareykanka ayaa ka digayay in wadanka Ruushku rabo inuu weeraro Ukraine balse Ruushku waa uu beenin jiray arrinkaas hase ahaatee subaxnimadii hore saacadda wadanka Russia ayaa waxaa si toos ah markaa u bixiyay madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin in hawlgal laga fuliyo bariga wadanka Russia oo uu la jeedo xuduudda u dhaxaysa wadanka Ruushka iyo Ukraine haddaba daqiiqada kadib markii amarkaasi uu bixiyay madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin gudaha wadanka caasimadda Ukraine ee Kiev ayaa waxa laga maqlay qaraxyo taasi oo ah gantaalo uu Ruushku ku soo tuuray gudaha wadanka Ukraine haddaba markii dagaalku sidaa ku bilaabmay waxa ilaa haatan socda qaraxyada iyo gantaalaha uu ku soo garaacayo Ruushku wadanka Ukraine haddaba daqiiqadii ugu dambeeyay dagaalka waxaa soo galay wadan saddexaad oo ah wadanka Belarus ayaa isna sidoo kale xuduudda ka soo tallaabay isla markaana gudaha u galay wadanka Ukraine halka gawaarida Ruushku ay ka tallaabeen xuduudda wadanka Belarus isla markaana gudaha u galeen Ukraine dagaalkani waxa uu socdaa imiga hal jiho kaliya maadaama uu Ruushku ku qaaday Ukraine dagaalka balse dhanka kale Ukraine wax tallaabo ah weli ma qaadin isla markaana xulafadeedii uu hogaaminay wadanka Mareykanka iyo NATO waxay ku balansan yihiin inay shir degdeg ah ka yeeshaan xaaladda soo korodhay isla markaana ay tallaabo qaadaan balse weli wax tallaabo ah ma qaadin Mareykanka iyo xulafadiisuba caasimadda Kiev iyo magaalooyinka kale agagaarkeeda ah waxa ka holcaya dabka ay shideen gantaalaha uu Ruushku ku garaacay magaalooyinkaasi haddaba xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka dalbaday isla markaana jeediyay hadal baryo weeg kadib markii uu madaxweynaha Ruushka ka dalbaday in si bini'aadantinimo ah uu kala baxo ciidamadiisa wadanka Ukraine isla markaana uu qadariyo bini'aadantinimada hadalkaasi oo muuqda hadal raqiis ah haddaba dagaalkani sidaan hore u sheegnay waxa uu ku salaysan yahay la dagaalanka uu la dagaalamayo wadanka Ruushku isku ballaarinta ay sameynayaan gaashaanbuurta NATO haddaba waxaan kula socodsiin doonaa xaalad kasta oo ka soo korodha dagaalkan fadlan ugu xidhnow isla markaana